Google AdSense inuu ku aqbalo lacag ka samayso wuxuu u baahan yahay waxyaalo asaga quseeyo oo mar walba uu ka rabo qofka markuu page wax ku soo gudbinayo ama website-ka wax ku soo gudbinayo si Google AdSense ku aqbalo oo lacag dushiisa uga samayso lacagta kuu soo diran oo ay ku dhahaan waxa tahay qof annaka naga mid ah oo wax soo sameynayo taasna waxa u baahan tahay inaad ogaatid Google AdSense page-ka uu aqbalo waa in video si step by step u daawatid anigoo gadaal ka tusan xataa page-ka qaabka loo saxo halkan hadda arkaysid waxa weey waa Google AdSense help waxa weey qaybta support-kooda oo ayaga ay ku sheegaan page-ka u baahan yihiin waxa jira page leeyahay mandatory pages la jiro page marka waxaan rabaa qaabka sida loo hagaajiyo iyo sida loo kala habeeyo waayo Google kuma soo aqbalayo adigoon page-ka hagaagsanin taasna waa marka midda ugu dhib badan weeye oo u baahan tahay mar walba in page-ka iska hagaajiso waayo Google wuxuu ogaanayaa in micnaha aad tahay qof real aad ahayn robot hadda bariga dambe waxa jira robot oo wax soo qorqora jira marka robot ahayn bad iyo inaad si cadeysada u baahan tahay si Google uu ku aqbalo okay waxaan tageynaa marka qaybta dashboard-ka meesha marar badan waa ku tusay waad aragtay dashboard-ka tagaysa dashboard-ka markaad imaadid dashboard-ka meesha waa qaybta WordPress-ka dambe hadii website-kaadu WordPress hosting uu nahayn waynu ka hadli doonaa ama hadii kala qaybta comment-ka igu soo qor hadii wax kaas qaldan yihiin balse sidii saxda waxay tahay marka imaadid dashboard-ka imaadid waxaad imaanaysaa meesha ku qoran tahay pages meesha ku qoran tahay imaanaysaa page marka imaadid waxaad arkaysaa meesha ku qoran tahay add new ku dhufanaysaa marka add new ku dhufatid waxa lagu geenayaa meel cusub page cusub lagu geenayaa page-kaas cusub marka wuxuu ku geenayaa meesha page cusub aad ka sameyn lahayd oo magac u bixin lahayd page-kan waxa kuma qoraysid magac bas u bixinaysaa magac bas ku qoraysaa sidaas marka wuxuu ku noqonaysaa page maahan in post aad sameynaysid laakiin page bas sameynaysaa okay markii page-ka san u soo kaco page-ka markii aad san u noqdo add title meesha ay ku qoran tahay wax kale ma qabanaysid waxaad ku qoraysaa bas page-ka magac aragtid hadaad privacy policy ku qoraysid ama ku qoraysid term of condition aad baa ku qoraysaa ana hadda terms of condition privacy policy kulli website-ka waa leeyahay balse adiga aan kugu tusayo waxaan ku qorayaa test privacy policy waa test garanaya bas qaybta meesha ugu sareyso publish ay ku qoran tahay ku qoraya publish waxa leeyahay confirm me ha publish aan leeyahay meesha publish aan ku qoraya publish markaan ku qoro page-kaas marka waa la create gareeyay oo hadda wuxuu ku dhex jiraa website-kayga asagoo page-kaas ever ah ku dhex jiraa waad ordaysaa meesha ku soo noqonaysaa waxaad ku qoraysaa meesha page-ka ku qorneed yaa leedahay page ku dhufanaysaa dusheeda all page ku dhufanaysaa meesha horeeto oo ugu dhufatay add new ugu dhufatay iyo hadda waxa ku dhufanaysaa all page waxa leedahay page-ka dhamaalo aan sameeyay ee wada tus micnaheedu taswiir marka page-ka dhamaalo la wada tusaya dhamaan kulli inta lagu wada tusaya page-ka dhamaalo oo website-kaada uu leeyahay halka marka waxa ku arkaysaa page-ka dhamaalo ku arkaysaa waxa dhamaalo about page activity page English page waxaan wacnaa waxa page-ka website-ka ku jira Somali online money terms and condition tii hadda aan sameeyay watas test privacy policy tii hadda aan sameeyay halkaas ay noogu qorantay mid hore aan iska lahaa oo hore meesha ugu jirta taas privacy policy ayadoo terms and condition Somali online money page-ka hore aan sameeyay meesha hore ugu wada jiraan way ku jirta laakiin tii hadda aan sameeyay meeshaan ay ku jirta waynu arkaynaa qaabkaas ay u taalaa marka waxaan ogaanay page-ki hadda aan sameeynay inuu noo sameeyay uu noo hagaagsan yahay hore aan socono waxa arkaysaa marka page-ka markii hadda aad sameeysid saambay noqonayaan page-ka dhamaalo meeshaan ay ku soo qormayaan qaab hoos loo dhigo waa jirta waa ku tusi doonaa ay ga dheeraanayna video-ga si fiican u dhameystaa waayo hadhow su'aalo kale ta weydiin doontaa oo meesha aan gudaha ku sheegay hadana adkaanaysa in aan hadana comment kugu soo jawaabo waayo comment kugu tusi karo laakiin halkan kugu tusi kara marka waa inaad si tartiib u raacdaa marka hadda waxaynu imaanay meesha page-ka waan hagaajin waxaan rabnaa marka inaan soo qaadano privacy policy-ga waxa aad gacan ku sameeyay ayadoo waxaan ku barayaa free generator oo micnaha waa lagu sameeynaya waxa imaanaysa Google-kaada waxa ku qoraysaa privacy policy free generator ku qoraysaa Google-ka imaanaysa waxa ku qoraysaa free privacy policy generator ku qoraysaa markaad ku qortid yes aad leedahay waxa ku soo bixi doona waxyaalo badan tusaale kuwa xayisiin balaga in ka soo baxaan kuwa aad ku qoranta waa iska xayisiin ha ku dhufan ka leexo kuwa ugu ka sii hooseeyo ay ku qoran tahay free privacy policy generator halkaas ku dhufanaysaa ka baad wuxuu keenay page-kan markuu keeno waxa uu arkaysaa meena free markaysa terms and condition generator marka halkan waxa gelinaysaa magacaaga company micnaha company marka uu leeyahay waxa weey waa website-kaada magaciisa laga rabaa halkan waxa laga rabaa website-kaada oo .com wata laga rabaa mid kale waa ka tirsan .com hadana .com ay ugu qoran waa ka tiraa waxaan leeyahay waa company-gayga waxa weey SEO tools aan leeyahay waa website kale aan leeyahay qaybtan kale waxa arkaysaa waxa lagu leeyahay waxa ku qortaa website name-ka magaciisa ku qor marka waxaan leeyahay website name-kiisa waxa leeyahay SEO tools website URL-ka marka waxa weey .com kiisa ku qor .com kiisa marka ku qortid ka baa leeyahay wadanka waa kee wadanka ku qoranaysaa wadanka ku qor daacada Soomaaliya meesha ku jirta anad Uganda jooga Uganda ku dul qoranaya hore aan ka soconaya email-ka lagu dam waxa leeyahay email-ke yaa lagu soo diraya ama hadii kale email-ke yaa ku qoranaysaa website ku leeyahay waxaan leeyahay website email-kan uu leeyahay generate my terms and condition leeyahay markaas check baan ku dhufanaya waqti yar aan suugaa marka waxaan leeyahay please wait way ay dhameystirmad intaas way ay dhameystirtay laba shay meeshan waa sameyn kartaa laba shay waa sameyn kartaa adiga dooq leh in micnaha aad soo qaadid meeshan copy link to clipboard meeshan soo qaadid oo linka soo copy gareysid ka bacdi aad imaadid meesha page-ka aad ka sameeysid iyo dul imaanaysaa page-ka waa kana meeshan ugu sameeysan yahay waxaan dhahaynaa darno edit
page-ka waa edit gareynaa waayo markaan edit ahna wuxuu nageenayaa qaybtiisa horey oon ooga sameynay gudaha ahayd yuu nageenayaa halkaasna linkiga waa dhex gelin doonaa page-ki waa kana page-ka wuu ku keenay waa kana marka meeshan waxa weeye test privacy policy kii hore aan sameeyno waa kana marka linkiga yaan maxal copy paste aan ku leenahay waayo waa soo copy gareynay hadda paste aan ku leenahay marka haddii WordPress-kaada tusaale ahaan waxyaalaha hosting-ka hadduu uu support gareynayo waad ku sameyn kartaa saas haddii kaleeto oo nahayn uu kaas uu support gareynin caadi waa usoo kobin kartaa control A dhigi kartaa highlight uu noqon karaa control C usoo kartaa ama isnahayn mouse-kaada kusoo jiidi kartaa drag ilaa meesha ugu dambeysa waad kortigi kartaa right click leeda copy aa kusoo qaadaysaa copy aa kusoo qaadaysaa waa imaanaysaa meeshaan imaanaysaa oo page-ka meeshiisa qaybtan hoose uga baxaysa waxaa leedahay plus add blog leedahay waxaan kusoo dirayna waxa weeye waa paragraph macnaha waxaan ku daraynaa leen dheer badan paragraph markaan ku qorno halkaas waxaan tegaynaa control C aan leenahay ama haddii kale caadiga paste-ga right click leedahay paste kusoo bixi paste ku dhigi kartaa markaan paste una arkaysa wow waxaan haysanaa terms of condition oo Google aqbalayo warna uu ka soo celin karnaa kuwa aniga shakhsiyaantayda markaan Google codsanayo wuu i diiday waayo waxa weeye page-kayga ma hagaagsaneen balse midaan waan soo hagaajiyay markaan saan u soo hagaajiyay Google hore iga aqbalay marka midaan waxa weeye mid aniga aan sameey waxa aan soo fiir aan ku leeyahay balse waa mid aan sameeyo ogahay inay shaqadaas waa aan kula wadaagan raba adiga ka walaal ahaan inaad uga faa'iideyso hadda page-kan iska bixinayna remove aan iska leeyahay midkaan soo noogu soo haray midkaan hadda arkaysaa waxa lagu yiri welcome to SEO tool source waa kan wax dhamaalaba intaan ka soo copy gareynay meeshaan aan keenay meeshaan waxa weeye update aan leenahay privacy policy-gan page-kan saas uu noogu dhameystiran yahay ku kale marka hadii u baahan tahay qaybta kale waxaad leedahay hadda kan privacy policy ee kan kale ku qoraysa waxaad leedahay terms of condition ku geenay ayadana sidaas ugu qoraysaa mar walba iska hubi adwa kana kan hadda aan qorino waa terms of condition haddana waan tagaynaa meesha mar walba marka waxa weeye midkaad qortay magaciisa iyo midkaad soo qaaday waa inay isla ahaadaan midkaad soo qaaday iyo midkaad qortay waa inay isla ahaadaan terms soo qaadaysa waa inaad terms aad qortay haddaad privacy policy soo qaadaysa privacy policy waa inaad qortid oo haddana privacy policy xagga ka soo qaaday marka waxaan rabaa hal sir inaan kula wadaago si page-ka macnaha meeshaan loo wada keeno waayo mar walba wax dhamaalo intaad kor meeshaan wada keentid way ka buuxsan meesha ka buuxsamaysaa foolxuna ka noqonaysa marka waxaan rabaa qaab loo keenay inaan ku baro taasina aan ku tuso ka faa'iideyso si qurux badan qaybta hoose salka badan ayaa la geystaa si macnaha si qurux badan bay noqonaysaa hadda arkaysaa laakiinse waxaa ii kaleeta foolxume in ii kaleeta about page-ka aan la sameyn karin about page isku dayin inaan about page si loo sameeyo soo weydiiso waayo about page-ka adiga samaysan karo adigana kugu xiranta about page soo sameeyso waayo about page-ka waa wixii website-ka ku qabatid qofka tahay iyo macnaha waxa sameynaysid iyo foundation-ka iyo meelaad soo martay wax sameynaysa anaa inta yartan ku qoray anaa gacantay ku qoray macnaha xayr waqtiga la sameeyo 2018 anigana sameeyay halkan waxa weeye waqti dheer soo maray waxaan ku soo gudbinaa macnaha waa skills aan ku soo gudbinaa iyo xirfadaha aan hore loo sheegin inta bisa ku qoraysaa bas wax weyn ma ahan about page-ka laakiin labadaas muhiim ah about wax yar aad ku saabsan iska qoraysaa laakiinse waxa muhiim privacy policy terms and condition labadaas muhiim labadaas marka waxa mandatory page la yiraahdaa kuwaas waa in iska waxaysaa ayagu marka dadaan ku tusay si free loogu sameeyo free ku soo sameeysa laakiinse u kaad hadagdagin hadii wixii aad sameysatay ma ahan in iska hordi kartid laakiin page-ka waa in la keeno gudaha meeshan sida kuwan u muuqdaan in loo soo muujiyo la marka ordina degdegin waxa marka u baahanaa inaan tagno qaybta waxaan ku noqonaynaa dashboard ku noqonaynaa waxaan tagaynaa meesha ku qoranta appearance dashboardka marka tagto appearance ku dhufanaysaa ka bacda xataysa meesha menus ay ku qoranta menus ku dhufanaysaa si fiican ugu appearance marka tagto xataysa menus ku dhufanaysaa marka menus ku dhufatid ka bacda hoos u soo baxaysaa menus uu geenaya haduu uu soo galin page-ka meesha uu soo galin refresh aa leedahay page-ka haduu meesha soo galin refresh aa leedahay macnaha inuu u soo galo laakiin hadda refresh aanay waxaan ka fiirinaa bal inuu soo galo koran u baxayna qaybta ugu sareysa marka waa inuu soo gala hadda arkaysaa kii hadda aan soo galin oo ku tusay oo test ku qornid oo adiga aan kula hagaajiyay adiga dartaan aan u hagaajiyay yaa meeshan ku qoran isla asaga meeshan ku qoran arkaysaa test privacy policy calaamadda marka meesha kor saaran oo meesha check siinaysa macnaha waa saxaysa tiga siinaysa waa kana isku magac isku qoran waa isla asaga waa iska hubinay magacii baa iska qoran marka waxaan rabnaa in macnaha calaamadan saaran calaamadan tig saarayna add to menu aan leenahay meesha seerta calaamadaas add to menu ka bacda wuxuu soo galaa meeshan wow wakaas halkaas soo gala haddaan update dhaho iminka haddaan update dhaho website-kayga meesha menu ay ku qornaayeen iyo Somali online money downloads ay ku qornaayeen halkaan uu ka soo baxaya balse aniga mar midaas aan sameeyo adiga laakiin marka intaan keentid hatta waa la jiidi karaa macnaha waa kala bedel karaa su'aalaan hadda midaan qaabto on kor geeyo tan kale soo qaada kor waa keeni karaa laakiinse taas adiga kugu xiranta taas macnaha adiga saad haba yeelan kartay kugu xirantahay Soomaaliga waxa dhan waxa weey waa kala hagaajin karaa home laakiin waa in ugu horeeyo waxa dhan waa kala hagaajin all of them waxa weey marba meesha ta ka jiidan kartaa an laakiinse halkii aan ku celinayaa mar raba inay wax iga halaan waayo si hore u hagaajiyaan ku qanacsanahay midda hadda testing aan ku tusana waa iska bixin doonaa laakiinse marka intaas dhameysay qaybtan ugu hooseysa qaybta salka ugu hooseysa save ku dhaynaysa ka bacdi waxa imaanaysaa waxay soo galaysaa meeshan hadda ay ku qoranta downloads ay soo gali doontaa meeshan hoos si fiican fiir meeshan hoos qaybtan hoos save menu si fiican ugu fiir halkaas aad save ku leedahay marka save ku dhahdid meeshan way soo galaysaa taasna waxaad ku haysataa page-ki uu Google rabay adigoo website-ka soo dhaxgalay si qurux badan ugu soo galay taasna waxa warlaan inuu Google ku aqbalay balse Google wuu ku aqbalay oo page-ka uu arkay laakiin waxa macquul koorkina soo gashay marka u baahan tahay in video meeshan ku soo dhigay aad daawatid si koorka u gashatid